markale kulan wacan wanaagsan qeyrtan daawanaysa ay ku soo dhawaada warkii fidsan aynu ku bilaawnay allaha u naxariistay imaam maxamed yuusuf cali oo kamid ah dhaqanka Soomaaliyeed ayaa ku geeriyooday wadanka Hindiya iyadoona madax kala duwan oo ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo madaxdii hore ee dalka ay ka taasiyeen imaam maxamed yuusuf oo kamid ah dhaqanka Soomaaliyeed ee muddada dheer dalka ka shaqeynayay arrimaha dib u heshiisiinta nabadda iyo sidoo kale isdhexgalka bulshada ayaa ku geeriyooday wadanka Hindiya halkaas oo xaalad caafimaad loo geeyay xubno ka tirsan ehelkiisa ayaana noo xaqiijiyay in marxuumku uu maalmihii la soo dhaafay xanuunsanaa isla markaana ugu dambeyn maanta Jimcaha uu halkaasi ku geeriyooday dhinaca kale madaxda ugu sareysa dalka iyo madaxdii hore ayaa ka tacsiyay geerida imaam maxamed yuusuf madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kamid ah mas'uuliyiinta ka tacsiyay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu yiri madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu horeyn waxa uu tacsiid tiiraanyada u diray qoyska ehelada iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed geerida naxdinta leh ee ku timid Allah u naxariistay imaam maxamed yuusuf oo ku geeriyooday dalka Hindiya madaxweynaha ayaa ku tilmaamay imaamka hal door qaran oo door muuqda ka soo qaatay geedi socodka nabadeynta dalka dib u heshiisiinta bulshada Soomaaliyeed iyo dadaaladii dib loogu yeegleelay dawladnimada Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa Allah subhanahu wa ta'ala uga baryay marxuumka ayaa lagu yiri qoraalka in uu hoygiisa ka yeelo jannatul firdaws samri iimaanna uu ka siiyo qoyskii eheladii iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee uu ka baxay dhinaca kale xubno ka tirsan madaxdii hore ee dalka ayaa iyaguna ka tacsiyay geerida ku timid Allah u naxariistay imaam maxamed yuusuf madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo kamid ah mas'uuliyiinta ka tacsiyay geerida imaamka ayaa yiri waxaan uga tacsiyeenaynaa qoyska ehelada iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed geerida ku timid Allah u naxariistay imaam maxamed yuusuf cali Allah u naxariistay imaam maxamed waxa uu muddo dheer kamid ahaa dhaqanka Soomaaliyeed ee ka soo qayb qaatay nabadda dib u heshiisiinta iyo dawlad dhiska isagoo si gaar ah uga mid ahaa 135 oday ee aasaaska u ahaa dawladnimada maanta la haysto waxaan alla u weydiinaynaa marxuumka jannatul firdaws waxaana si gaar ah ugu tacsiyeenaynaa awlaadiisa qoyskiisa annaga samir iyo iimaan Allah naga wada siiyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isna qoraal tacsiye ka soo saaray geerida imaam maxamed yuusuf ayaa yiri waxaan tacsida iyo murugada geerida la qaybsanaya qoyska qaraabada bahda dhaqanka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee uu ka baxay Allah u naxariistay imaam maxamed yuusuf cali oo ku geeriyooday dalka Hindiya imaamku waxa uu kamid ahaa udub dhaxaadka duubabka dhaqanka Soomaaliyeed oo uu door muhiim ah uu ka soo qaatay dib u heshiisiinta nabadeynta iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed isaga oo kamid ahaa duubabka dhaqanka ee budhiga u ahaa dib u yeegleelida dawladnimadeena waxaan marxuumka alla u weydiinaynaa inuu hoygiisa ka yeelo jannatul firdaws samri iimaanna uu ka siiyo qoyskiisa qaraabadiisa iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed dhinaca kalena odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ayaa dhankooda waxa ay ka tacsiyeen geerida ku timid Allah u naxariistay imaam maxamed yuusuf waxaa kamid ah xubnaha tacsida diray ugaas maxamuud cali ugaas oo muddo sanado ah ay soo wada shaqeynayeen iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha badbaadada bulsho nabadoon Cabdulqaadir Abaabul إنا لله وإنا إليه راجعون الله أنا حريستو إمام محمد يوسف علي إيمان oo ah runtii nin taariikh weyn ku leh ummadda Soomaaliyeed oo maartay wax badan soo shaqeeyayna ilaa xilligii imaam Umar Allah u naxariistay kadibna uu sii dambeeyay oo gacayar uu ahaa imaam maxamuud Umar haddana ma aha nin ku shaqeynayay magaca imaamna muddadii ilaa 12 ilaa hadda uu geeriyooday marka imaamka waxa leenahay Allah u naxariisto waa gartay bal faahfaahin waxa naga siisaa muddooyinka dambe miyuu xanuunsanaa ama xanuun ku soo booday buu u geeriyooday bal xaaladiisu sidee ahayd maalmihii ugu dambeeyay muddooyin badan oo wuxuu ahaa uu ka socdo muddooyin badan marka hadda bilii ugu dambeeyay waxa xanuunsanaa haddana ugu dambeystii waxa geeyay dalka India la geeyay halkaas ayaa ma qadartii ugu dambeeyay ku geeriyooday imaam maxamed yuusuf goorma isbarateen ugaas adiga ahaan runtii aniga muddo horaan isbaranay laakiin waxaan aad u bartay oo maartay aad u wada shaqeynay markii uu dhintay wixii ka dambeeyay imaam maxamuud Umar markuu dhintay wixii ka dambeeyay waa wada shaqeynayno maartay muddo ilaa 12 laga soo bilaabo oo 15 sano muddo wada shaqeynay qof nuucee ah ayaad ku sifeyn lahayd marka Allah u naxariistay marxuumka waxaan ku sifeyn lahaa qof runtii oo aad u taqwo badan aad u cibaado badan inta hadda marka uu
dareeyo xanuunsaday wixii ka horreeyey marna kama baaqajin xadna kama baaqanin arrinna kama baaqaday wuxuu ahaa nin gacan furan nin sadaqa badan nin maaragtay ehelka u roon nin qaraabada u roon nin masaakiinta u roon nooc walba marka laga fiiriyo wuxuu ahaa nin taqi u haya lana marka Allah u naxariisto howlihii dhaqanka ee aad isla gasheen bal ka waran maxaad hal iyo laba naga xasuusin kartaa oo aad isdhihi karto haddii imaam maxamed yuusuf uusan gartaas ama howshaas kula geli lahayn suuragal ma noqon lahayn in xaajadaas xal laga gaaro والله هو برنايين laga soo bilaabo dawladdiskii Soomaaliya oo martii dawladdii uu madaxweynaha ka ahaa yani shirku uu qaban jiray oo dib loogu sameeyay Soomaaliya oo dawladdii ku meel gaarka looga baxay oo madaxweyne ahaa Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo wixii ka dambeeyay oo madaxweynaha ka dambeeyay inta waa wada shaqeynayay marka meelo kala duwan ama dibushin ha ahaato ama xulistaankii xildhibaanada iyo shirweynihii dastuurka ku meel gaarka ahdi ku meel gaarka lagu ansixinayo waxyaabo badan ka soo wada shaqeynay oo aan hadda hal iyo laba ugu soo koobi karin marka waa barnaayeen halkaas ayuuna hoggaanka ahay dadka Soomaaliyeed ee imaamka yaqaanay maxaad fariin ah oo la wadaagaysaa runtii dadka Soomaaliyeed oo imaamka yaqaana waxaan leenahay horta marka ugu horeysa maanta duco ayuu u baahan yahay loo duceeyo ana la cafiyo marka in la cafiyo oo waa qof wax soo dhaqay wax soo hogaamiyo hoggaan dhaqan u ahaa marka ummadda Soomaaliyeed qayb meel kala duwan ka soo shaqeeyay marka dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leenahay aan iswada cafino isagana hal la cafiyo aan loo duceeyo maxaad xog ah oo naga siin kartaa waqtiga la aasayo goobta lagu aasayo weli ma jirtaase arrintaas wax war ah oo ilaa hadda ma processka inaan ka hor dhac marraba waa la soo sheegi doonaa insha Allah waqtiga la keenayo goobta waa la soo sheegaa insha Allah maanta oo bish 3 tahay bish 7 2026 waxaan rabaa meeshaan inaan tacsi uga daro nin madaxweyne oo nugu weyn oo curadkayniya oo sharafkayniya oo madaxayniya oo sanbuuqadayniya oo la yidhaaho maxamed yuusuf cali imaan maxamed yuusuf cali imaan inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun aan leeyahay allah u naxariisto ilaahay qabrigiisa ha u waasiciyo ununkana allana ma fidneeyo gadaashiisa waxaan uga tacsiyeyhaa intii magaca Soomaaliyeed intii duubaba intii Soomaaliya intii daljoog iyo qurba jooga duubabka Soomaaliyeed waxaan leeyahay allah u naxariisto waxaan leeyahay qabrigiisa allah u waasiciyo anigoo gudoomiyihii golaha badbaado bulshada nabadoon abaabul waa u tacsiyaa maxamed yuusuf cali imaan allah u naxariistaan leeyahay ummadda Soomaaliyeedna iska cafiso aniguna waa cafinay qabrigiisana allah u waasiciyo janno firdowsana allah ka waraabiyo waa kaasaa tacsidaasaan rabay galabta inaan jeediyo walaalkayga khudbada markaan gelayaa lay sheegay inuu xijaabtay qoyskiisa iyo carruurtiisa golaha midowga Afrika ayaa waxa uu war ka soo saaray hadal dhawaan ka soo baxay dawladda Mareykanka oo ku aadanaa inay joojinayso howlgalka taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya ee dawladda Mareykanku ay horay u taageeri jirtay guddiga midowga Afrika ayaa waxa kulan aan caadi ahayn oo degdeg ah oo isugu yeeray la taliyaasha militari ee wadamada xubnaha ka ah golaha nabadda iyo amniga si xal rasmi ah looga gaaro go'aankii dhawaan dawladda Mareykanku ay ku cadeysay inay joojinayso taageerada ay siiso howlgalka taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya wixii ka dambeeyay 31 bisha December ee sanadkan 2026 qoraal ka soo baxay guddiga ayaa lagu yiri guddigu waxa uu doonayaa in uu ku wargeliyo safaaradaha iyo howlgallada joogtada ah in 1 Luulyo 2026 howlgalka Mareykanka ee midowga Afrika uu gudbiyay qoraal isagoo ku wargelinaya in Mareykanku uusan taageeri doonin si socoshada xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya wixii ka dambeeyay ogolaanshaha hadda ee EUSOM oo dhacaya 31 December 2026 qoraalka oo sii socda ayaa lagu yiri horumarintani waxa ay leedahay saameyn muhiim ah oo ku saabsan joogteynta saadka qaab dhismeedka howlgalka iyo sidoo kale maalgelinta howlgalkaba iyadoo la tixgelinayo arrimaha kor ku xusan
iyo iyadoo la raacayo qorshaha degdega ah ee guddiga ee arrintan. Guddigu waxa uu ku martiqaadayaa xubnaha la taliyayaasha militariga difaaca ee guddiga shaqaalaha militariga kalfadhi aan caadi ahayn oo ku saabsan mustaqbalka howlgalka taageerada iyo xasilinta midowda Afrika ee Soomaaliya. Arrintan awgeed, guddigu waxa uu soo bandhigi doonaa dulmar guud oo ku saabsan saameynta horumarkan oo ay wehelinayso tallaabooyinka dabagalka ee la soo jeediyey iyo wakhtiyada tilmaamaya ayaa lagu soo gebagabeeyey qoraalka ka soo baxay guddiga midowda Afrika ee looga hadlay go'aankii dhowaan dowladda Maraykanku ay ku shaacisay inay joojinayso taageerada ay siiso xafiiska howlgalka taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya. Mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa maanta waxaa kulanna ay ku yeesheen magaalada Muqdisho. Cabdilcasiis Okey ayaa faahfaahinaya. kulanka ducada sanadlaha ah ee beesha Firinjecle oo ka mid ah beelweynta Jijele ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Kulanka waxaa ka qayb galay duubabka dhaqanka beelaha Soomaaliyeed, ugaasyada iyo salaadiinta dhaqanka beelaha Hawiye ee ka yimid dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya, qaybaha kala duwan ee odayaasha dhaqanka beelweynta Jijele, odayaasha dhalinyarada, haweenka iyo qaybaha bulshada beesha Firinjecle ee kulanka ducada sanadlaha ah qabatay. Ugu horeyn, nabadoon Hilowle Macalin Yacquub ayaa sharaxaad ka bixiyey ujeedka kulanka ducada sanadlaha ah ee beesha Firinjecle oo ka mid ah beelweynta Jijele. ujeedada kulanka haddii aan u soo laabto waa duco sanadla ah beelweynta Firinjecle ay dhigato. inta kale ee xoogaa marayaalka iyo quraanka iyo khaaska la akhriyo waa jirtaa ee marmar la akhriyo, laakiin sanadkiiba hal mar sidaas oo kale haddii uu xoolo badan la helay iyo haddii xoolo yar la helaba ee sanadka la isugu yimaadaa. kulanka waa intaas, ma siyaasadeesna, war siyaasadeed ma aha, xildhibaan lagu goobi mahayo, maamul goboleed uma soconno, mucaarad ma ahin, muxaafad ma ahin, dowlad shaqo kuma leh. waa kulanka ducada sanadlaha beelweynta Firinjecle. sidaasaan rabnaa inta joogtana inay ogaato, inta maqlaysa inta fiirsan doontana ay ogaato. waa mahadsantihiin, ajiibitaankan waa ku mahadsantihiin. Ugaas Sahal Carab oo ah ugaaska beesha Hawiye ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo ugaas Axmed Mukhtaar Sanyare oo ka mid ah duubabka dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa soo dhaweeyey kulanka ducada ee sanadlaha ah ee beesha walaalaheen ee Jijele ee markaan Muqdisho soo galay beeshii koowaad ee marti qaaday. maanta haddana in jilib ka mid ah oo Firinjecle la yiraahdo uu marti qaado oo nagu soo dhaweeyo xafladan iyo meeshan munaasabadeedu ay habboon tahay. aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. ducada sanadlaha ah ee qabsadeenna Allah inoo wada aqbalo, ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda muslimka ah Allah u aqbalo, adowgana Allah ka qabto. nabadoonkeenna qaaliga ah ee markii aan soo galay maalintii ku xigtana marti qaaday, maantana isagu martiqaadkii noogu yeedhay ee naga soo qayb galiyay beesha uu ka soo jeedo nabadoon Hilowle. halkan ma ilaa jigjigu idinku anfacaya annaga og inaad garab gashaan ood hiil iyo hoo wixii tala ah ee tusaale ah ee wanaaga ee uu la yimaado aad la qaadaan ayaan soo jeedinayaa. waxaan u mahad celinaynaa beesha Firinjecle oo nagu casuuntay shirkan sanadeedka ducadana Allah idin aqbalo. qolada ugu xigta ayay dilaysaa ilaahay cudurka dilmada iyo qabyaaladda iyo khilaafka. maanta ducadiina Allah aqbalo, ilaahay ummadda Soomaaliyeed ha ka joojiyo ayaan leenahay dhammaan muslimiinta oo dhan. waad mahadsantihiin. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka beesha Jijele iyo duubabka dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ayaa kulanka ducada sanadlaha ah ee beesha Firinjecle ka hadlay soona dhaweeyey. ehelkiisana waa la dadaaleen. waxaan leeyahay ilaahay quraankaas ha idin aqbalo. jeelan waxaan ka doonaynaa inaad adiga gobol u dhigto jeela 4 jeel in asu keento quraan akhriska tiraado hool u kareyso asu keentana waa ka sugeena insha Allah hadii ilaahaydo. ducada aad dhigteen guud ahaan Soomaaliyeed u duceyseen, gaar ahaan gobollada u duceyseen, ka sii hoose Jijele Firinjeclena ha ku dhamaato. ilaahay ha ka dhigo kulankan kulankiisa mid hoolkan qaadi waayo oo fagaaraha sida dadka qaarkood quraacda ku qabsadaan aan insha Allah rajaynaynaa. iskoorka hadda waa jaban yahay, adinkaa jibiyey waxaasna bifadlillah ilaahay wuxuu leeyahay
laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna naas. marka kulankan wuxuu daaran yahay islaaxa ku jiro, xiriirina ku jiro, wax walbaa ku jiro. maxaa yeelay gogoshaan halkan la dhigay, dadka oo xanuunsan waa lagu quraan saaray, dadka oo dhibaataysan waa loogu gargaarayaa. wax badan ay leedahay. fadhigan wanaagga badan, xalfadan wanaagga badan, ducadan wanaagga badan oo maanta soo qalqaaliseen, ilaahay ha idiin aqbala. ducada ma aha duco siyaasadeed, ma aha duco wax kale lagu jirina, waa duco isbarasho, waa duco ilaaha maxaa la dhahay diinta ilaahay lagu akhriyey. wax kaloo maanta tafatafayna kale ma jirta. marka allah idiin aqbalay, ilaahay idinkiis wixii lagu doonay adduun iyo aakhira allah idinkugu sahlo. annaha maanta ducadan walaalaheena farajaallo ay noo dhigeen runtii macnaha waa mid aad u qiimo badan, oo macnaha duco leh. ilaahay ducadooda ha u aqbalo. nabadoon hilowlana haddee macnaha runtii macnaha nabadoon ka weyn yahay, nabadoonka hawiye guud ahaan waa farajaallo waa ka weyn. marka nabadoone runtii waxaad noo horseeday duco aad u qurux badan oo lagu daydo. anaga naftaan hadda markaan kadib waa inuu jeel macnaha sidaan oo kale beelbeel ducadaasi usoo bandhigaan. taariikhda beesha Farajacle oo walaalaheena oo maanta gogoshaan martiqaadka noo fidisay runtii si aad ayaan u garanayaa. ilaahay ha u naxariistee adeerkan xasan xariiriye ayaan horta aad ugu aqaanay. markii labaadna waxaan bartay nabadoon hilowlo macallin yaaqoob. ilaahay subxaanahu wa tacaala aniga u duceeyna allah barakeeyo, cimrigiisa allah noo raajiyo. waa nabadoon hawiye, waa nabadoon Soomaaliyeed, waa nabadoon gogondhabe. marka aad iyo aad aan u mahadsan yahay nabadoonka allah barakeeyo iyo garbihiisa iyo guddigii hawshan ka soo shaqeeyay gooshan quruxda badan. marka waxaan leeyahay beesha walaalaheen oo Farajaclo runtii waxaan ku aqaanaa midnimo iyo isku duubni. marka inay meesha ka sii wadaan, hawsha la sii xoojiyo insha Allah sanadkan iyo sanadyada ka sii dambeeya meeshaan meelkiisii waan u rajaynaynaa. gabagabadii waxaa kulanka soo xiray kana duceeyey macalin Nuure Cali Salaad. iyo diinta aad u qurux badan maanta ay ka dhacday. ilaahay waxaan ku baray kuwa ku khayr Allah naga dhigo, kuwa ku khayr Allah naga dhigo. ilaahay diinta maanta ilaahay bacd alxamdulillah ولنا الله يهدي من يشاء إلى أنت نوسى حنوني. الحمد لله رب العالمين. صغير كبير سوك كان بعد عرض عرض سوك كان. إلهي يا مهدي سوك، إله نو بركة، إله نو بركة، إله نو بركة. مدان تنتو أرسوي نواي، تنتو أرسوي نواي، تنتو أرسوي نواي. الحمد لله رب العالمين. إله يا مهدي سوك. عبد العزيز أوكي يونيفرسيتي في مقدشو. dowro lagu baranayay culumta kala duwan ee quraanka kariimka iyo ahkaamta shariicada ayaa lagu qabtay masjid saxaaba oo ku yaala xaafada laba dhagax ee degmada Warta Nabadda. Anas Maxamed Soomane ayaa ka waramaya. dowro cilmiyeed ay si wada jiraysa ka kaashan doonaan muasasada iyo masjidka saxaaba laba dhagax isla markaana lagu baran doono barashada quraanka kariimka ee qowlka ee bay culumtiisa iyo barashada cilmiga shariicada ayaa maanta si rasmi ah looga daafuray magaalada Muqdisho. munaasabad ballaaran oo lagu daafurayay dowradan oo lagu qabtay masjidka saxaaba ee xaafada laba dhagax ee degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ka qayb galay qaar ka mid ah culimo oo diinka Soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. dowradan ayaa waxaa bixin doona macallimiin isugu jira rag iyo dumar, iyadoo qaybta barashada cilmiga shariicada ay si gaar uga faa'iideysan karaan ardayda ka baxday ama dhigata jaamacadaha iyo dugsiyada xilliga ay fasax yihiin. Sheekh Cali Axmed Maxamed, maamulaha masjidka saxaaba, ayaa ugu horeyn munaasabada daafuray. maanta waxaan u joognaa mashruuc kale oo cusub, maadaama dowrooyinkii hore iyo isku dayadii hore ilaahay fadligiisa ay guulaysteen, baahida bulshadu ay qabtana ay in badan soo kordhayso, soo badatay oo wax badan markii dowrooyinka la bilaabay la arkay. muasasada iyo masjidka iyo maamulku waxay go'aansadeen laba dowro in la daahfuro oo cusub. dowrada koowaad waxa weeye al-Qur'aan wa culuumuhu, iyadoo laga bilaabayo asaaska al-kitaaba wal-qiraa'a ilaa quraanka in la xafido oo la itqaaniyo, la tajwiidiyo, kutubu tajwiid iyo culumta la barto. haddii ilaahay uu idno qiraa'aadkii iyo culumtii kale oo quraanka ku saabsanayd lagu akhri doono,
ijaazaad iyo in la bixiyo oo la ijaazeeyo oo culimo aqoon durugsan u leh oo ijaaso iyo sanad u haysataana ay bixiyaan oo laga faa'iidaysto. mashruucaas waa mashruuca ugu weyn ugu baaxadda weyn oo maanta aan rabno daafurkiisa inaan bilowno bulshadana ku soo dhaweyno. dowladda labaad waa dowro waqtigeedu gaaban yahay, waxaana loogu talagalay dadka daraasada nidaamiga qaata oo iskoolka dhigta oo jaamacadaha dhigta oo xilligii lagu jiro nasashada iyo fasaxa. sheekh abuukar xasan maalin oo ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn, sheekh nuur yuusuf sheekh nuur gudooda iyo sheekh abshir cumar abikar oo labadaba ka mid ah culimada diinka Soomaaliyeed ayaa munaasabada soo xiray iyaga oo dardaaran adag u jeediyay ardayda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay ka faa'iideysanayeen dowladdan. marka waan la weydiin doonaa waalidiino waa la idin weydiin doonaa intee lagu soo baabiyay ilmaha wixii marka lagu barbaariyo canugaana adiga sabab ugu noqonaysa. haddii wanaag lagu barbaariyo wanaaggaas adiga sabab u noqon adigaan ajirka helaysa. haddii xumaato uu ku barbaaro ama aqoon la'aan diineed uu ku barbaaro fa anta al-mas'uul al-awwal. cidda ugu horeyda wax laga weydiinayaa waa adiga waalid awal. marka inaan ka faa'iidaysano xilliga gaar ahaan dadka la soo hadal qaaday oo ah waxa weeye dalabatul jaamicaat wa dalabatul madaaris الثانوية والإعدادية والابتدائية ardada jaamicaadka iyo ardada yani waxa way dugsiyada sare ay dhiganaysa inay xilliga ka faa'iideystaan. guud ahaan sidaan ognahay mu'asasadu waxay u taagan tahay mu'asasatu saxaaba lilqur'aan alkariim walculuum sharciya inay barbaariso ayna diyaariso jiil iyo ubad ku barbaaray kitaabka alleh sunnada nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi kuna laguna barbaariyo calaa wafqi manhaji ahli sunnati waljamaaca ayadoo loo marayo barnaamij tacliimi tarbawi ah mucaasar ah la jaan qaadayo mustawayaadka ardada kala duwan. waxay ka kooban tahay daraasada amba qeybta qur-aanka kariimka ah 4 mustawo. mustawaha koowaad waa mustawaha ugu horeeyo uguna muhiimka ah ugana adag oo laga soo saaro qof la rabo inuu noqdo caalim. waa qaybta ugu horeyso oo alkitaaba walqiraa'a la yidhaahdo oo ahamiyadda gaarka leh. qaybtaas mu'asasadu waxay ugu tala gashay kow alkitaaba walqiraa'a ardayga in laga dhiso, sidoo kale asaaska hijaa'iga laga dhiso, sidoo kale nutqigii hijaa'iga oo saxiix ah looga dhiso. waxay culimadu u taagan yihiin mar walbaba inay tawjiihiyaan ummadooda oo meesha khayrku uu ku jiro ay ku tawjiihiyaan. waxaa halkan aanu ka daafurnay muddo 5 bilood ka hor ah dowra cilmiya ah oo ragga qayb ragga ah iyo qayb gabdhaha ah iyo dowro kale oo sidaas oo kale masjidka weligii baa sheekh cali uu ka akrin jiray muddo aan isleeyahay 10 sano marka way dhan tahay ama way ku dhowdahayba ayaa sheekhu maaragtahay masjidkan gacanta uu ku hayay oo dhowr goor fiqiga sheekhu uu ku dhameeyey, culumul carabiya uu ku dhameeyey, tafsiirka uu ku dhameeyey. culimo kalena sidaas oo kale ay sheekha dhinaciisa masjidu saxaaba ay duruus fara badan uga akrinayeen. masjidku marka masjidu saxaaba waxa uu taagan yahay mar walbaba risaaladii nabigeena sala allahu calayhi wasalam inuu ummadda gaarsiiyo. waxaa hadda ku soo kordhay masjidka in aanu daah furno 2 mashruuc oo khayri ah. mashruuca ugu horeeya waa mashruuca tacliim alqur'aan alkariim. qur-aanka kariimka iyo culumtiisa in jiilka soo koraya ee gabdhaha, wiilasha, dadka da-da yar, dadka da-da weyn dhammaan in la gaarsiiyo
weliba lagu gaarsiiyo usluubkii iyo nidaamkii uu ugu soo degay nabigeena maxamed salawaatullah wa askaa tasliimaatihi caleyh mashruucaas marka ayaa muasasada masjidu saxaaba ay maanta ay ku dhawaaqday inuu noo daahfuran yahay uuna noo furan yahay biidni illaahi tacaala da' kasta oo qofku uu jirana waxbarashadu mar walbaba da' ay ku xadidan tahay ma jiro marka qof jaamici ah ama heer master gaaray ama PhD haysta in uu ka jaahil noqdo waxyaalaha maaragtay asaasiyaadka hoose diintiisa ah oo wax ceeba qofka waxaa laga yaabaa berri adigoo jaamici waxaa laga yaabaa inaad ummad u khudbayso ama aada mas-uul noqoto ama aada madaxweyne noqoto ayaa dhici karta oo ummad dhan aada hogaamiso haddii marka islaamkii oo dhan aada jaahil ka tahay ama aadan garanaynba si aada u tukato xaas haddaad guursato waxyaalaha xaaskaaga uu kaaga furmayo nikaaxa axkaamtiisii ganacsi haddaad gasho qaabka aada u ganacsanayso xalaal iyo xaaraan aadan kala sooci karin dee waa noloshaadii dhammayd waxay noqoneen nolol inta badan aad ku khasaartay isqorista ayaa ka socota dabaqa ka soo horjeeda xalwa baariyow ee shalay macali ka min ee degmada warta nabadda ee magaalada muqdisho anas maxamed soomane TV-ga Universal muqdisho gudani qeyrtana daawanaysa warkooda kaga imanaya telefishinka Universal studio muqdisho xilligan waa naga inta